الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، waxaan ka hadlaynaa walaalayaal hadduu ilaahay yidhaahdo caawa intuu alla inooga saamaxo qisatu nihaaya, khaatumada insaanka ayaan ka hadlaynaa. insaankan daciifka ah, insaankan miskiinka ah, insaankan arlada isku waaweyneynaya ee ku kibraya, nihaayadiisu gebagabadiisu maxay noqon doontaa? insaanka arlada waad isku kibrinaysaa insaanow, arlada waad isku qaadqaadaysaa insaanow, laakiin nihaayadaadu maxay noqon doontaa? arladan markaad ka sii baxaysid eed aakhiro u socotid, nihaayadaadu maxay noqon doontaa? khaatumadaadu maxay noqon doontaa? maxaa lagugu khatimi noloshan adduunka ah? ma wanaag iyo khayr mise shar iyo xumaan kay noqon doontaa? ilaahay ka dhiga khaatumadeena ta wanaagsan. bimaada yukhtam, insaankan maxaa loogu khatimayaa? qowlkiisu siduu noqon doonaa? ficilkiisu siduu noqon doonaa? insaankani 50 sano ayuu soo noolaa, ama 60 sano ayuu soo noolaa, 70 dheh bal 100 dheh, intuu doona ha noolaado insaankani. cumrigiisu ha dheeraado ama ha gaabto, nihaayadiisu maxay noqon doontaa insaankan markuu insaanku uu dhimanayo? ayuha alikhwa, marka firaashka mawdka la dul fadhiisiiyo uu dul jiifo ee la rogrogayo, markay naftiisu ay soo gaadho qarqarada xagga ay soo gaadho, ay shanqadhaysa, ay qarqadh ay leedahay, markay indhihiisu taagmaan uu indhaha caddeeyo, markay neefsigu uu neefsanayay uu diiq ku noqdo ad kari waayo inuu saani u neefsado, midabkiisii wuu isbedelay, xaaladiisu way isbedeshay. wakhtigaas wuxuu dhinac ka arkayaa dadkiisii, awlaadiisii, haweenaydiisii, asxaabtii, jiiraankiisii, dadkii buu arkayaa. dhinac gurigiisii buu arkayaa, adduunkanuu arkayaa, cadceedda soo baxaysa waa tii ugu dambays. dhinacna wuxuu ka arkayaa malaa'igtii ilaahay ayuu ka arkayaa, malaa'igtii naxariista ayuu ka arkayaa oo u bishaaraynays. walciyaadu billaah, amaa wuxuu arkayaa malaa'igtii cadaabta oo u hanjabaysa oo leh u soo bax, cadho ilaahay iyo xumaan u soo bax. وحال آذية آد أدرا أيها الإخوة الكرام. أولادي سبا أدواقسا، آب حقيتي آب ما نقد من إنن كيسي أجعلا، هويني ديسي ويكد الأوييان، دادكي أوردن أياك أوييا، قيلدو ذو مقليا، هذا الكوغو مقليا، شنقدو ذو مقليا، جواب مسين كريو. وحال آد أدرا، dhinacna malaa'igtii ilaahay ayuu arkayaa, midabkiisu waa isbedelayaa. ilaahay waxa uu yidhi kallaa idaa balagat الtaraaqiya waqiila man raaq wadanna annahu اlfiraaq. ilaahay waxa uu yidhi naftu markay kalxamaha ay soo gaadho, ay qarqaradii ay bilowdo, dadkiibaa isku yaaciyaaci, dadkii baa isku orordi, dhakhtar doona. waqiila waxaa loo odhan man raaq, ayaa daweey, ayaa candhuuf ku tufi, wadaadkii u doona, raadiya, dhakhtar raadiya. waqiila ee la yidhaahdo man raaq ayaa daweyn. wadanna annahu alfiraaq, isaguna wakhtigaa wuxuu yaqiinsaday, uu arkay inuu arladan u ka tegayo. firaaq khalaas waa sii socdaa
وسيبحيا مهل لكريو وليجين بدختر دونا وليجين بوحد دونتان يدونا وظن أنه الفراق وحو أركي إني دمشق أي تهي أو نبتهي أيو أركي خلاص نفتي باك بحيس ديق بدريمية الدونكي أوردن أي عديدكو ملائكتي بأركيا تلو محل لوغو ختميا تلو لا إله إلا الله ما أوران كريا تدكي بأقيا عيا لا إله إلا الله بالحسوسينيا تلو محاسوسان دونا آد بؤو هرادن يهي وقت قاس هراد حوق الأيها لكن بد أو بيئة أو بيئة معانا أو دن هدي لورابين لها مهارات سريان إبليس با وقتها أصوب بحية إبليس با بيقبو أكتسا خشو بيا أولي اسك قالوا وانكو ورابين اسك قالوا وقت أذقويان ووقت آد أفرحن والتفت الساق بالساق لوغيه مقادي كرايو يسو لوغيه سيبا لسكو قينيا حوقي سيبا حوقا كلا لو قينيا انديه بو أتكينيا قرقره شنقر حوق لأيا كبحيس وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق حق إلهي أيوسي سعوداء حق إلهي محاك هوري إنسان كان محو قدمت إنسان كاني هن أجنو تصويرتا دبودية لحظات البرقسي أيات لمشهد أقوى هذا لوشيس مذهب كيسو يسبدلي إنده وتاجي يا قفك اختردي أردن أي أكتوجا ولا حسوسين يا لا إله إلا الله نبل ليه ساسو إيجي يا شيء ما هل كريو وقتي قاسوحو أركيا ماشو قلي ما كنا مسوى النار أيو أركيا نفتي أيا كبحس ولا كرتها أيا شهادتي أيا اللو قبنايا وح لو قبت مجرو وانك لو قلت على ومدحوينه ووزيرك وان لعقتها لها ددكي أردن ويسمي فراشكي موتك أيو كريالا نخترذي أردن ويقوستان وحقو قبن كران ملك عمها لقلابت الموعد أخي ما هو الآن وإحنا سمين كران ملك ولا سوق يا تلو لا إله إلا الله ما أوران كريا إلهي قاد بوافتشي ولا إله إلا الله لي تسمعهم حولك يا محمد تفوت على الإسعاف ركبوه في السيارة وظن أنه الفراق لبا مالمود إيا لبا هبين أوي دادكو إيادو أو كلا أينما قلما إني شاقا أول يوم يجيئك البشير من الله إما برضاه وإما بسخطه maalinka ugu horeeya labada maalimood ee ugu daran maalin waxa weeyaan waa maalinka aad noloshan ka sii baxaysid ee khalaas dhimanaysid waa maalinka maalin uu malaa'iktu ku imanayso xagga ilaahay bay malaa'iktu kaaga imanaysaa talow majani iyo wanaag iyo raali ahaanta ilaahay ayaa lagugu bishaareynayaa mise carada ilaahay ayaa lagugu bishaareynayaa maalin waa maalinkaasi waa maalin aad u adag qofku khaatumadiisu maxay noqonaysaa maxaa loogu bishaaraynayaa ma wanaag iyo khayr mise cabsi iyo naar maalin waa maalinkaasuu yidhi maalinka labaadna waa maalinka ilaahay aysa soo hortaagi doontid ee kitaabka lagu siinayo ma midigtaa lagaa siinayaa kitaabka mise bidixdaa lagaa siinayaa labada maalimood aad bay u adag yihiin buu yidhi laba habeen baa jira oo aad iyo aad u dhibaato badan habeenka ugu horeeya waa layla tabiitu fiiha bilqabr habeenka ugu horeeya eed qabriga u hoyatid habeenka ugu horeeya maanta lagu aasay caawa qabrigaad u hoyatid waa habeen aad iyo aad u adag aad u foolxun aad u daran habeenkaasi waa habeen cabsiya habeenka labaadi
وليلة سبيحتها يوم القيامة وهبينك اللباد صباحدنا أي قيامه ودعيه لبادا سواه ولبا آدي أدو أذك إمام شافعي رضي الله عنه أدولا قرنيسان زاهدك أها عابدك أها إمامك إذلا إمام هذه الأمة إمام كاسي مركي أدمني رضي الله عنه لمشهدي مركي أتمد أرضيسي مزني أي أيمد وحأكول كيف أصبحت سيد وبريستي سيتهي وحأيري أصبحت من الدنيا راحلا وحا وبريستي أنيغو أمانت الدنك كتغية الدنك أيان كسي سعدا ولإخواني مفارقة أصحاب تيدي إيدتك أنشعلا إيا ولا لهي وانكفارقيا ولكأس المنية شاربة موتك إمشديس أذيك إمشدة سكرات الموت أيان قليا ونعبيا كوبكي سكعبيا ولسوء عملي ملاقيا نرى الشيدة أعماشي حميد إن صومري إن إلوبي أردن أيان لكل ميا حمانتي أردن أيان لقو حساب الدونا وعلى الله واردة إلهي حقي سأيان صعدا فلا أدري ما قرنايو ما هو روحي تصير إلى الجنة روح ذا إذا إيا نفط إذا محقا إيا الجنة أيا الله قادي أو تهنية ذي مبروك ميان إلى هذا مس حقا إيا النار أيا الله قادي أو أن تعزية ذي انت كذب إمام شافعي رضي الله عنه أوي إمام أحمد وحا أسوبحي حديث أنس رضي الله عنه النبي كورينيو أنس وحا أيري نبي أيايري صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته إلهي أدونكي سهدو خير لدونه إلهي وحو كسل لذا وحو كن مشغوليا وحال جعليسيا انتو ندي من كهر عمل وناكسن أيا لك شقيسيا سحابتي داير يا رسول الله وكيف يستعمله محل لك شقيسيا لغو مشغوليا نبي وحا يري يوفقه لعمل صالح عمل وناكسن أيا لغو مشغوليا الله وافتيا ثم يقبضه عليه كدبنا عمل كوناكسن إساقو أو كسوغن أيا الروح ذا لك قادا نفت لك قادا نفتيسي إساقو أو خير كاكو تشيرا خير كاكو داليا أيا نفتي كبحذا ولو بشارينيا وحكر لمنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله أي كل لمنيا إلهي بايري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلهي وحأيري كوي أرني ربي وإلهي كدبنا توسنا حقك أتكا حق قبصدي صلاة تكني سومي محارمت إلهي كبحسني كعبسني كواسي حالة أي لمنيان مركم موتكو إيمادو إلهي مهوشينيو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي وحو حسوسينيا كلمة لا إله إلا الله يكو العلنيين كلمة دي بلا حسوسينيا لا إله إلا الله محمد رسول الله أيكو دواقيا أيها الإخوة نرى الفيعا أيكو تشيرا ولا حسوسيي الدنكو كو العلن تشيري صلاة دكو تكن تشيري مرولبا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحال أمر أردن أيكو دادالي يسدو أغسو بحي لها وقتي قاس أي نفتو أي كبحيسو ملائكتي باو إيمانيسا ولو بشارين إياه محال يقول لي إياهي ألا تخافوا هعبسنينه ملائك بكو سودكتي ملائك وناكسن وبشارين إيسا وشيقوقو قدلاليو وحيليهين ألا تخافوا هعبسنينه وحي نقول صعدها كعبسنينه جنة إيا وناق إيا خير بش إيا برواقع إنه صعدها جنة ذي إلهي با إنه صعدها هعبسنينه هنقع عبسنينه نارها كعبسنينه آخرها كعبسنينه بشاريستا وناق إيا خير با إني سوغن ولا تحزنوا همرقونينا
waxaad ka tagteen awlaadiinnii maalkiinnii dumarkiinnii ilaahay baa ilaalinaya ha u murugoonina waxa inagu soo socdana ha ka cabsanina la leeyahay waabshiruu bishaaraysta biاljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii alla inagu ballan qaaday jannadii la yidhi qofka u soo shaqaysta ee u soo dadaala ilaahay ma hoojinayo jannadii ayaa la leeyahay u bishaaraysta waatan jannadii waad gelaysaan bishaaraysta saasaa loogu bishaaraynayaa xilima markay naftu ay ka baxayso marka ay qubuurtooda ay galaan iyo marka la soo saarayaba aakhiro mu'minku wakhtigaa wuu farxayaa wuxuu ku farxayaa la kulanka uu la kulmayo allah ilaahay uu la kulmayo ayuu ku farxayaa markay dhimashadu u timaado wakhtigaa wuu farxayaa nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam xadiiskii cubaadah ibnu saamit nebigu waxa uu yidhi man axaba liqaa'a allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allah kariha allahu liqaa'ah ninka jeclaada la kulanka ilaahay uu la kulmayo ilaahayna wuxuu jeclaadaa la kulankiisa waman kariha liqaa'a allah ninka karha la kulanka ilaahay uu la kulmayo kariha allahu liqaa'ah ilaahayna wuxuu karhaa la kulankiisa caaisha waxay tidhi radia allahu canha innaa lanakrahu lmowta yaa rasuula allah nebi allow gebigayow mowdka waan karahnaa ma jeclin nebigu waxa uu yidhi arrintu taa maaha caaishaay laakiin wakhtiga mu'minku uu dhimanayo waxaa loo bishaareeyaa naxariista ilaahay raalli ahaanta ilaahay karaamada ilaahay markaasuu jeclaadaa mu'minku waxa uu ku sii socdo ayuu jeclaadaa ilaahayna wuxuu jeclaadaa la kulankiisa ka kale ee kaafirka ah ama munaafiqa ah wakhtigaa waxaa loo bishaareeyaa xumaantiisa iyo sharkiisa iyo cadaabka u gelayo ayaa loo bishaareeyaa iyo waxa u dambeeya markaasuu nacaa la kulanka ilaahay ilaahayna wuu nacaa la kulankiisa ayuha alikhwatu alkiraam xusnu alkhaatima waxyaalaha lagu garto calaamaadka ugu horeeya ee lagu garto waxa weeyaan qofka inuu ilaahay waafajiyo inuu ashahaato uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah adduunkii buu ka baxayaa adduunka maalinkii uu soo gelayey uu soo dhashay dhegta midig ayaa lagaga aadaamay awal shay u maqlay allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayaa la maqashiiyey adduunka markuu ka baxayeyna wuxuu kaga baxay isagoo oo leh laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka uu noqdo hadalkiisa ka ugu dambeeya uu noqdo laa ilaaha ila allah uu ilaahay waafajiyo nebigu waxa uu yidhi kaasi dakhala aljanna jannada ayuu gelayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam aan isweydiino maanta imise ayaa dadkeena laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ku dhintay dad badan ma xasuustaanba laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah bal taswiirahan daawada ayay nafti ka baxday qacantii saasay ku ingegtay ilaahay xusaya ayay nafti ka baxday kadibna saasuu ku dhintay aakhir shay tasbiix iyo dikri ilaahay ayuu hadalhayay isagoo oo tukanaya oo ilaahay weydiisanaya inuu ilaahay khaatumadiisa uu wanaajiyo ayuu nafti ka baxday saasuu ku ingegay isagoo oo sujuudsan ayuu ku ingegay suud bay naftii kaga baxday saasuu ku qalalay qabrigii waxaa la dhigay isagoo oo sujuudsan aakhirana waxaa la soo saaraya isagoo oo sujuudsan maxaa ka wanaagsan allahu akbar waan ku daawasiin doonaa ilaahay baa waafajiyey wanaag buu arkay kadibna isagoo oo aad u qoslaya ayay naftii ka baxday waa dhulka filistiin askartii yahuudda ayaa ku dhufatay qori rasaas aakhir laxda markay naftu ka baxaysay wuu qoslay saasay naftu kaga baxday isagoo oo qoslaya oo faraxsan ilaahay baa wax tusay wanaagiya khayr baa la tusay waa shahiid ilmahaa yar ku qalalay isagoo ilaahay baryaya oo kacbada jooga maxaad u malayn
ilaahay suu khaatimadiisa ugu wanaajiyey saasuu ku qalalay saasuu ku ingegay qabrigii baa la dhigay isagoo ilaahay baryaya allahu akbar waa xusn alkhahm ayuu dhintay isagoo oo sujuudsan waa maalin jimce ayuu dhintay radia allahu canhu ee u soo shaqaysta ninkan waxaad arki doontaan isagoo oo sujuudsan masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay naftu kaga baxday maxaad u malayn waa masjidkii nebiga waa madiina waa meeshii fadliga badnayd waa meesha salaada quraatee lagu tukado 1000 salaadood ay la ajar tahay ama 100 salaadood ay la ajar tahay weeyaan meeshaasay naftu kaga baxday waa fadli badan waa ilaahay baa waafajiyey khayr iyo wanaag joogay baa waxa uu ku yidhi ukhrijuu cannii iga baxa falaa yabqaa axad qof ayuu igu aghadhin iga baxa buu yidhi gebigood way ka baxeen way dhegaysanayeen albaabka agtiisa ayay istaageen waa ninkaa dib u socda xaggaasay kaga baxday naftu sacuudigay ka dhacday waa kaa dib buu u socdaa malakulmowt ma yaqaano kubad buu ciyaaraya u kaadi malakulmowt ma yaqaano kan wuu tukanaya u kaadi malakulmowt darsi buu bixinaya sidaan darsiga imika u bixinaya oo kale isagoo oo ku jira ayay naftu ka baxday درسي وبحنا يا والله صعتان هيك ولا سو قبتي ولا سو هيا واشهتي اندو كلو تاغي حقاس و داعي lagu soo celinaya mar kale indhuu kor u taagi doonaa waa shahatay aakhir laxda waa shahatay naftu way ka dhac wa xusn khaatima si wanaag wuxuu waafajiyey inuu qur'aan akhriyo inuu ashahaato inuu u dardaarmo waa xaaladii ay naftu ay ka baxays suurat tabaarak ayuu akhriyaya إلا أنت خلقتني ولا عبدك اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب لي وارحمني مرحبا بهذه الوجوه وجياشا قرح بدن هسو دواتو ليست بوجوه إنس ولا جان وجياشا قرح بدن إن إنسنا أهين جن أهين هسو دواتو كدب وحو أخري آيات قرآنك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إلهي وحا أوليها دارتا آخرة وحا أن سينينا أن أيالينا كوان أرلدا اسكو كبرينين أرلدا أن فساد لدونين عاقبتنا وحا إسكاله متقين تأي إسكاله كدمنا رحمه الله ساس أيوكو دنت لمشهدي مركا أتمت أبو الوفاء ابن عقيل
aad buu u ooyey. markaasaa waxaa lagu yidhi maxaa ku helay? reerkiisiiba aad u ooyey. markaasaa waxa uu ku yidhi lii 50 sana acbuduh, waxaan u tegayaa ilaah naxariis badan, 50 sano ayaan ilaahay soo caabudayay, maanta ayaan u tegayaa. naftayda ha faraxdo oo ilaaha aan soo caabudayay han la kulmo, oo naftayda han ugu tahniyadeeye maxaad igu ooyeysaan ayuu ku lahaa. jaabir ibnu salami alkalabi ayaa waxa uu midigeliyey saxaabigii caamir ibnu fuhayr radia allaahu canh. markii ay mididii ay gashay ayuu caamir dhawaaqay, waxa uu yidhi fusduu warabbi alkacba, ilaaha kacbada laan ku dhaartee waan guulaystay oo waan liibaanay. bilaal ibnu rabaax radia allaahu canh markii dhimashadii u timid, sakaraatulmowtkii markuu u yimid ayuu qoslayey, wuu faraxsanaa. waxa uu lahaa hadan nalqa alaxibba, beritoole waxaan la kulmayaa dadkii aan jeclaa, saxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebigii iyaan la kulmayaa. hadan nalqa alaxibba, haweenaydiisii baa oyday. markaasaa waxa uu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? hadan nalqa alaxibba muxammadan wa saxbah, beritoole ayaan la kulmayaa muxamed iyo saxaabtiisii. waa bilaalaah, waa xusnaah bay tiri, way bilaalow, way murugtayday. markaasaa waxa uu yidhi waa faraxaa, way waa farxadayde, way waan faraxsanahay anigu. calaamadaasi waa calaamadda ugu horaysa. xusnulkhaatima waxaa lagu garanayaa qofka inuu ilaahay waafajiyo shahaadada, inuu wakhtigaa u farxo. calaamadda kale waa dhabanadiisu inay dhididaan wakhtigaas. nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wassalaam almu'minu yamuutu bicaraqi aljabiin, qofka mu'minka marka uu dhimanayo labadiisa dhaban ayaa dhidid ka soo boodaa. dhidid buu ku dhintaa buu yidhi nebigu calayhi salatu wasallam. qofka mu'minka dhidid ayaa ka soo booda. xusnu khaatima calaamadaha waxaa ka mida inuu qofku dhinto laylat aljumuca, habeenka jumcaha inuu dhinto ama dharaarteeda inuu dhinto. imaam axmed waxa uu soo saaray iyo imaam tirmidi cabdillaahi ibni camr inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam muslim ma jiro dhimanayaa maalinka jimcaha ama habeenka jimcaha ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr, ilaa hadduu jiro ilaahay waxa uu ka badbaadiyaa cadaab alqabriga ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mida xusnulkhaatima inuu qofku isaga oo dariiqa ilaahay u dagaalamaya inuu dhinto. inuu dhinto ama uu daacun dilo, ama caloosha intay shubanto uu ku dhinto, ama qaraq uu ku dhinto oo biyo ay qaraqiyaan, ama isaga oo maalkiisa difaacaya uu ku dhinto. intaas oo dhan waa calaamadaha wanaagsan. maxaa sababa haddaba? maxaa sababa oo lagu gaadhi karaa acmaasha wanaagsan? ta ugu horaysa waa maxay? waa alistiqaama, qofku inuu dariiqa ilaahay ku toosnaado. ilaahay baa yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu, kuwii yidhi rabbigay waa allah, uma istaqaamuu kadibna toosnaaday kuwaas tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu. kuwaasi waa xusni wanaagsan iyo khayr wanaagsan ayaa u sugan buu ilaahay leeyahay. ta ugu horaysa waa alistiqaama, qofku inuu dariiqa ilaahay ku toosnaado, sharka uu ka fogaado, xumaanta uu ka fogaado. ta labaadi waxa weeyaan attaqwa, inuu ilaahay ka cabsado. ilaahay baa yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu min amrihi yusra, ninka ilaahay ka cabsada ilaahay arrinkiisa oo dhan waa u fudaydiyaa. ta saddexaad waa asidq, run inuu sheego. ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah, hoykii alliya nebigiisii rumeeyow ilaahay ka cabso. ittaquu allaha, ilaahay ka cabsada. wakunuu maca asaadiqiin, kuwa saadiqiinta macooga ahaada buu ilaahay yidhi.
waxaa kaloo lagu gaadhaa attawba qofku inuu ilaahay u toobad keeno. ilaahay baa yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun. war ilaahay u toobad keena dadow, waxaad mudan tihiin inaad liibaantaane. inuu daacada ilaahay u daa'imo, umuudka xasuusto, taas ayaa lagu gaadhaa xusna alkhaatima, khaatimada oo wanaagsanaad. suu'u lkhaatima walciyaadu billaah, inay khaatimadu ay qofka ay ka xumaato, qofku inuu gaalnimo u ku dhinto. dad badan baa maanta marka ay dhimanayaan ku dhinta iyakoo diinta caayaya, qaarkood iyakoo ilaahay caayaya ayay ku dhintaan. xaafid ibnu rajab raximahullah waxa uu ku soo saaray kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam la yidhaahdo in culammada qaarkood sheekh la yidhaahda cabdilcasiis ibni abi ruwaad inuu yidhi nin dhimanayay ayaan u imid, waa markuu dhimanayay markaasaan xasuusinay laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah ayaan xasuusinay. markaasaa waxa uu yidhi huwa kaafirun bima taquul, wuu ka gaaloobay isagu waxaan ad leedahay. taas ku celceliyey huwa kaafirun bima taquul, waxaan ad leedahay laa ilaaha ila allah, uu ka gaaloobay. saasuu ku dhintay. waxa uu yidhi markaan sii baadhbaadhay ninkaasi waxaan ogaaday inuu khamrada uu aad u cabbi jiray. wuxuu odhan jiray cabdilcasiis ittaqu dunuub, dunuubta ka cabsada, fainahaa hayinun fahiya alatii awqacathu, taasi waa ta ninkaa ka dhigtay inuu ka gaaloobo ilaaha iyo laa ilaaha ila allah. waxa uu soo saaray imaam xaafid addahabi nin khamrada aad u cabbi jiray ayay dhimashadii u timid. dadkii ag fadhiyay baa xasuusiyey laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah. markaasaa waxa uu ku yidhi kii ku lahaa laa ilaaha ila allah ku dhe ayaa waxa uu ku yidhi ishrab, cab adugu khamrada, wasqini iwaraabi, anigana cabo anigana iwaraabi. isagana waa la xasuusinayaa, waxaa lagu leeyahay laa ilaaha ila allah dhe, isna waxau leey adu cabo khamrada anigana isii. isagoo oo sidaa leh ayaa nafti ka baxday. ibnulqayim waxa uu soo saaray kitaabkiisa qayimka ah, waxa uu ku soo saaray nin markii naftu ay ka baxaysay ayaa lagu yidhi laa ilaaha ila allah dheh. markaasaa waxa uu yidhi isaga oo heesaya ayaa wuxuu lahaa taantaan tantaantaan, waxaasuu akhriyey, waa musiigi iyo waxaan loo joogin ayuu ku dhawaaqay. isaga oo taantaantaantahaya ayuu malakulmowdkii u yimid oy nafti ka baxday. waxaa dhacay wakhtigeenan casrigan aan ku jirna hadda, dhulkan bangkok la yidhaahdo, inan ciyaalka carabta ah ayaa u dhoof inuu ku soo tunto. saaxiibaddii ayaa ka maqnaatay, meeshii khamriga lagu cabbeeya baarkii ayuu joogay. kuwii kale uu la socday asxaabtiisii, mid walba saaxiibaddii baa u timid, isaga ayay ka habsaantay. aad buu u murugaysnaa, wuu raagsanayey, xagay ku habsaantay, maxaa helay? markii ay soo gashay wuu farxay, isla markuu arkayba wuu u sujuuday. isagoo oo u sujuudsan ayay nafti ka baxday. suu'u lkhaatima, saasay nafti kaga baxday, walciyaadu billaah. ibnuqayim waxa uu sheegay bacdu tujaar, qaar ganacsanayey oo dharka ibin jiray, marada ibin jiray, ayaa markay dhimashadii u timid ayaa lagu yidhi laa ilaaha ila allah dhe. markaasaa waxa uu yidhi maradan waa rakhiis. kiibuu ku leeyahay maradan waa rakhiis. markaasaa lagu leeyahay war laa ilaaha ila allah dheh. markaasuu leey maradan aad ba u fiican tahay, waa rakhiis, wax yar baan kaaga iibinayaa. saasuu ku dhintay isaga oo laa ilaaha ila allah keli lah ayuu dhintay. sheekh cali alqarni la yidhaahdo waxa uu ka sheekeeyey inan yar oo sakaraatulmowdkii u yimid. markaasaa waxa ay ku yidhaahdeen laa ilaaha ila allah dheh markuu sii dhimanayay. markaasaa waxa uu yidhi waxaa iga daayo, bal sigaar ii dhiib. waxaa lagu yidhi war laa ilaaha ila allah dheh. waxa uu yidhi actuunii dukhaanan, sigaar isiiya, sigaar baa igu darane. markaasaa lagu yidhi oo lagu celiya mar kale laa ilaaha ila allah dheh. waxa uu yidhi
أنا بريء منها بريء كأه ما دوني لا إله إلا الله وكقالوا بلا إله إلا الله أعطوني دخانا سيجار إسية إسقوا السيجار إسية له أي نفتي كبحضي إنا يرأك له وقت يجي سكرات الموت لما شد أتمت كوي أكفر دي أي وحى يقول هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله ده وهاللي هذا الكيسي بمقري وايين ويدقيستين مركله ugu celiyeen waxa uu yiri kitaab quraan ay diiba way farxeen dadkii kitaab quraan ay diiba way farxeen dadkii kitaab quraan loo keenay dadkii oo bishaaraysanaya oo la alxamdulillah ilaahay uu waafajiyay kitaabkii quraanka kor u qabtay markaas waxa uu yiri ushhidukum anni qad kafartu bi rabbi hada almushaf waxaan inii sheegayaa ilaaha kitaabka quraanka le ilaaha inaan ka gaaloobay isagoo oo sidaale ay nafti ka baxday ayuha alikhwatu alkiram وحالد آدو درن وقتقاس إلهي وبلن قاضي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي كلمة لا إله إلا الله وحو حسوسينيا وحا خاتمة الله هقاتشينيا والله وافتشينيا قفك كسود دالي لا إله إلا الله كسود دالي صوتو كان شري أوامرت إلهي قادن شري حمانت كفوقان شري وقتقا إلهي وحسوسينيا qofkii kale wala ilo siinaya wixii u jeclaa ayaa ku soo boodaya waqtigaas asbaabta keenta su'ul khatima waxa kamida fasaadul i'tiqaad qofka oo aqeedadiisu xumaato ayaa kamida aqeedadiisa xum ilaahay asmaadiisa ma garanayo ilaahay weynidiisa ma yaqaano ilaahay subhanahu wa ta'ala ma'abudu uma tukado waxa kamid tahay asbaabta lagu garto su'ul khatima khatimada qofkaasi inuu xumaanayso waxa kamida qofka oo adduunka jeclaada oo aakhira u daba jeediya aakhiri iyo waxaan aan daba wadaani maxay tahay wal adduunka ka shaqaysanana daaya lagu madiidan adduunka ka shaqayso aakhirana u dadaal aakhira waa meeshan u soconno markaas waxa uu ku leeyahay aakhiro إلهي ماشي دونها يقطوره الدنك أجعل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلهي وحا أوليه وحا الدور بديسان الدنك قابل أي الدور بديسان أجعشه آخرة ضدوك خير بدن بإلهي ليه سبحانه وتعالى وحا كميد سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي قفك أو معاصدة كلك سنادة كؤت كذا هد يشير معاصدة أن كتيرة أنكتوا بتكيني قفكو هدو كعادية شو تاصل لوغو ختما ساس النبي إنه الشاقع عليه الصلاة والسلام حافظ ابن كثير وحا يلي إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت قفكو ذنوبتي سو أي بدتو معاصدي سو أي بدتو شهوات كل راعية أي فربضتو وحي هوجسا مركا إدي مشهدو أتمادو مركو موتكو يمادو markaas wixii uu jeclaa ayuu ku soo boodaa markaas uu shaytaanku u yimaada uu xaqi iyo waanadii iyo la ilaaha illa allah alla waafajin ilaahi baa yiri wa kana ash-shaytaanu lil-insani khadula shaytaanku wuxuu ku dadaalaa insaanka siduu u hoojin lahaa ayuha al-ikhwatu al-kiram taan ku dadaalo inaan daacada ilaahay aan ku adkaano inaan ku celcelina la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah inaan mar walba xasuusanno ilaahay inuu khaatimadeena u wanaajiyo taan ku dadaalno ilaahayna hanagu anfaco kelmadda kooban wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh